kormeerkan xubnaha golaha deegaanka ee degmada Gaalkacyo ay ku tageen deegaanka cagaaran oo ka tirsan degmada Gaalkacyo ayaa ujeedadoodu waxay ahayd sidii ay ugu kurgali lahaayeen isla markaana xog ku filan ugu heli lahaayeen dhinacyada kala duwan ee arrimaha bulshada ee deegaankaasi ka shaqeeya sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha, xoolaha iyo wixii la mid ah. waxaana halkaasi ay warbixin kaga dhageysteen maamulka deegaanka cagaaran iyo dadweynaha deegaankaasi oo ka warbixiyay xaaladaha adeegyada bulshada ee ka jira deegaanka cagaaran. annagu haddaan ay bulshada reer cagaaran si ballaaran baan idiin soo dhaweynay xildhibaanada golaha deegaanka Gaalkacyo aad baan idinku faraxsanahay. waxaan rajaynaynaa waanta inay wada furanta noo noqoto xildhibaanada Puntland noo yimaadaan, waayo saan idin jecelnahay waa sidaan awal idin dooranay wey inaad baahideeda ka jurtuntaan la ogaado ardada cagaaran tayadeeda iyo waxbarashadeeda iyo siday number 1 iyo number 2 u kala noqoto oo la inoo kuurgalo aad bay waxa inoogu tahay muhiim. waan soo dhaweynaynaa dhammaanteen waxaana ka rajaynaynaa ardadu waxay xaq u leedahay degmada Gaalkacyo ay ugu leedahay waxbarasho free ah, caafimaad free ah. dawladda Puntland baan xaq ugu leenahay. waxa la oran karaa waa xildhibaanadii koowaad oo inta arda soo kaca fasal u gala. anigu kulay intaan cagaaran joogay waxa joogay 20 iyo dhowr sano ilaa markii la asaasay. marka waxa la oran karaa ku deeshay mudan yihiin, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. council ka yimi degmada Gaalkacyo iyo kuwa tuulada waa soo dhaweynaya. aad baan maartay ugu faraxsanahay in soo maartay boqotaan aad duruufaha iyaga aad maartay si aad xog uga heshaan. horta iskuulka hoose dhexe iyo sare ay isugu jiraan. waxa kaloo jirta dhibkan haysta kamid ah inaan haysan furniture ugu filan, kuraas iyo miisado. waxaan rajaynayaa markaa consulka maanta Gaalkacyo atiin haddaad aragteen baahidayada inaad qorshaha ku darsataan oo markaas aad shirreedeen xagga waxbarashada ka shaqeysaan aad soo qaadaan inaan hilmaamin. ku soo dhawaada deegaanka cagaaran gacan fara badan ku soo dhaweynaynaa. haddii aan si yar oo kooban aan u soo koobo xarunta waad u jeedaan kale dhismaheedii iyo sistemyadeedu maasha Allah aad u fiican yihiin. waxaana aad u dhisay dadka deegaanka u dhashay. waxaa xarunta gacanta ku haya salarigeeda iyo dawada wasaaradda caafimaadka Puntland iyo hay'adda Save the Children. oo baahiyaha waxaa ka mid ah dhanka biyaha oo kaleeta, dhanka dayactirro yar oo iska guryaha ah. waa baahiyo jira. maatinkiina iyo booqashadiina iyo kormeerkiina baahiyada aad ugu kurgalaysaan degmadii aad u dhaarateen iyo bulshadii aad u dhaarateen waa idinka mahadcelinaynaa. marka koobaad waa ku mahadsantihiin. marka labaad baahida matoorka deegaanka cagaaran waad u jeedaan. matoorka deegaanka cagaaran waa deegaan aad u koray oo baaxad weyn. lambar 1 matoorkan waxa uu u baahan yahay haan weyn iyo haankayd labadaba waa u baahan yahay. haan weyn oo waraabisa deegaanka iyo bulshada iyo haankayd oo haan weyn ah uu u baahan yahay. marka koobaad xubnihii ka socday golaha deegaanka ee degmada Gaalkacyo ayaa waxa ay ka hadleen ujeedada safarkooda halkaas ay ku tageen iyo waxyaalaha ay doonayaan inay xog ka helaan isla markaana ay wax ka qabtaan. boqoshadayadu waxay daarnayd inaan ogaano xaaladda waxbarasho ardayda ee deegaanka cagaaran iyo qaabka ay waxbarashada uga socoto. annagu waxaan nahay xildhibaanadii golaha deegaanka ee degmada Gaalkacyo. مسؤوليات بان naga saaran goob kasta oo wax lagu barto iyo arday kasta oo wax baranaya inaan xaaladiisa ogaano iyo qaabka uu waxbarashada u qaato. marka waxaan aad ugu qanacsanahay glasskan sida wax uga socdaan. degmada deegaanka cagaaran waa deegaan kulay hadartaan aan filayno deegaamada xagga waxbarashada ugu horeeya inuu ka mid yahay, sida iskuulku u aabulan yahay iyo sida manhajku uga socdaba iyo macallimiinta diyaarsan oo aqoonta leh oo tayada leh oo wax baraysa ardayda. intaba aad baan ugu faraxsanahay. mar walba waan garab taaganahay. maanta kaliya maha mar walba inta ay iimaan qalbiga ay ugu haynay. insha Allah baahiyaha ka hadashayna waan iga soo jawaabayna insha Allah dilaadin. xafladiina waa ka qayb qaadanayna. baahida iskuulkana lambar 1 bay noqotay. waxaan u nimid bay kamid tahay. la noqonaynaa jawaabteedana waa arki doontaa insha Allah dilaadin. golaha deegaanka iyo degmada inta ay ka qayb qaataan insha Allah sidii secondary-ga Sheekh Daahir Xasan Cagaaran oo dhismihiisa ku heli lahaa.
waxay aad arday uga hadashay arrimaha library-ga iyo inaysan jirinin waa baahi aad asaasoo boqol arday meel wax ku akhris hadaysan jirin arday secondary dhisanay sana aysan jirinin meel wax ku akhrisanayo oo casharada dib uga text book ay yaalaan wax ka diyaarinay aysan jirin waa culays aad u adag weeye insha Allah qariimideeda iyo socodkeedaba insha Allah dhammaan goluhu ay ka qayb qaadan doonaan wasaaradda ay hor fariisan doonaan insha Allah annaga kormeerkayagu wuxuu daba socday kormeero aan ku marinay deegaanka degmada Gaalkacyo meel walba waxaan rabnay inaan la ogaano bulshada baahiyaha ka jira baahiyaha ka jira waxaan waajib nagu ah inaan uga qareeno ummadda insha Allah waana idinku qareemanaa hal magaaladan inay dugsi sare u baahan tahay inay buug u baahan tahay inay suuliyaal u baahan tahay inay qalabayn u baahan tahay wax kasta oo ay u baahan tahay waxaan rabnaa inaan idinku qareeno Quraan Maxamed Cabdi Puntland TV Gaalkacyo